dawada subax wanaagsan kuna soo dhawaada markii barnaamijkeena arrimaha siyaasadda ee garqaad midia qodobada wararka aanu kusoo qaadan doono saaka waxaa kamid noqon doona dowladda dalka Iiraan oo qiratay inay soo riday diyaaradda rakaabkeed arbacadiina ku burburtay meel asaas uga fogeen caasimadda dalkaas Iiraan ee Tehran. magaalada Dhusmareeb waxaa saaka ilaa xalay ka soconayay shirar iska soo horjeeda kuwaas oo ku aadan liiska xildhibaanada cusub ay soo saareen guddiga farsamada ee doorashada maamulkaasi Galmudug. dhanka kalena barnaamijka ay soo bandhigay TV-ga qaranka ee lagu magacaabo Kungar ayaa waxaa kasoo muuqday shakhsiyaad inta badan dadka caan ku ah isla markaasna aan laga maleysan karin inay ka mid ahaayeen dadka u qaabilsan ururka Al-Shabaab dhanka khaarijinta iyo weliba ergooyin kusii qulqulaya magaalada Gaalkacyo xilli madaxweyne Xaaf uu ku sugan yahay magaaladaasi iyo weliba qorshihiisa ku aadan arrinta doorashada ee deegaanadaasi Galmudug. qodobadaasi weliba qodobo kale ayaanu daawadeel warkeena subaxnimo ay saaga kusoo qaadanaynaa. militariga dalka Iiraan ayaa waxa ay sheegeen in si aan ula kac ahayn oo kama ahayn loo soo ridan diyaaradda rakaabka ahayd taasoo laga lahaa dalka Ukraine sida uu baahiyay telefishinka qaranka Iiraan xalay. bayaan laga baahiyay saaka ayaana lagu sheegay sidoo kale in TV-ga falkan uu ka dhacay oo uu burburka diyaaradda uu ka dhashay khalad uu bini'aadam sameeyay. dadkii mas-uulka ka ahaa lala xisaabtami doonaa sida bayaanka laga baahiyay telefishinkana lagu sheegay. Iiraan ayaa horey u diiday warar sheegay in diyaaradda ay soo dhacday kadib markii uu haleelay gantaal ay Iiraan riday. diyaaradda oo laga lahaa Ukraine ayaa waxay ku burburtay arbacadii meel aan sidaas uga fogeen caasimadda dalkaas Iiraan ee Tehran iyadoo ay saarnaayeen in ka badan 176 qof. dalka Mareykanka, Canada, Ingiriiska ayaana sheegay hore in diyaaradda ku dhacday Iiraan uu ku dhacay gantaal ay rideen ciidamada dalkaasi. cadeymo ay heleen dalalkaas ayaana muujinaya in gantaalka ay riday dowladda Iiraan uu soo riday diyaaradda Ukrainian ay saarnaayeen dad rayid ah taasi oo ay ku dhacday duleedka caasimadda Tehran. wasaaraha dalka Canada Justin ayaa iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa sheegay jimcihii in loo baahan yahay in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo waxa sababay shirka diyaaradda oo ay ku dhinteen 176 qof ee saarnaa. wasaaraha ayaana sheegay in ay hayaan macluumaad dhankooda ah oo sirdoonka ku aadan arrintaasi uu soo bandhigay. cadeymo ayaan helnay sirdoonka xulufadeena iyo weliba kuweena waxayna muujinayaan buu yiri in diyaaraddaasi dhacday ay soo riday gantaal ay rideen ciidamada Iiraan waxayna arrintan ahayd mid ula kac ah oo la sameeyay. balse Iiraan ayaa xilligaasi diiday diyaaradda soo dhacday kadib markii ay gantaal ku rideen. diyaaraddan ayaa ay leedahay shirkadda duulimaadyada ee dalka Ukraine ayaa waxaa dhacday saacado kadib markii Iiraan ay weerartay saldhigyada Mareykanka ee gudaha dalka Ciraaq kuwaasoo lagu weeraray gantaalo. sidoo kale warbaahinta Mareykanka ayaa tabisay in dowladda Iiraan ay si kama u soo riday diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa gudaha dalkaasi Ukraine. dhanka kalena daawadayaal wararka ugu dambeeyay ee ka imaanaya deegaanada Galmudug ayaa waxay kusoo waramayaan in xalay ilaa saaka kulamo siyaasadeed iska soo horjeeday ka socda magaalooyinka Dhusmareeb iyo Gaalkacyo ee maamulkaasi. xukuumadan oo isdaba joog ayaa waxaa looga hadlayaa dhismaha maamulkaasi iyo weliba sidii loo wajahayo doorashada la filayo inay ka dhacdo Dhusmareeb. guddiga farsamada ayaa dadaaladii ugu dambeeyay wada magaaladaasi si loo dhameystiro dhismaha maamulkaas oo weli khilaaf ka taagan yahay. shalay guddiga ayaa ku dhawaaqay inta badan liiska xildhibaanada cusub iyadoo weli looga fadhiyo soo xilista xubnaha haray oo gaaraya ilaa 6 mudane. dhinaca kale madaxweyne Xaaf ayaa isagana shir ka wada gudaha magaalada Gaalkacyo isagoona ku dhawaaqay shir looga hadlayo dhismaha iyo weliba ayaha Galmudug. wararka ayaana sheegay in ergooyin ay diraan beelaha qaar ee Galmudug oo kusoo quloyaan Gaalkacyo kuwaas oo kasoo horjeestay xildhibaanada shalay la shaaciyay. lamana oga halka uu ku dambeyn doono khilaafka weli ka taagan Galmudug oo tan iyo markii la dhisay uu lagu qabtay isjijiid u dhaxeeya madaxda maamulkaasi. wasaare Khayr ayaana ku sugan isla magaaladaasi Dhusmareeb isagoona wadada daaladii ugu dambeeyay sidii loo dhameystiri lahaa dhismaha maamulka Galmudug walow inta badan musharaxiinta madaxweynenimada ee u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi ay iyagana ku sugan yihiin isla magaaladaasi Dhusmareeb. warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa baahisay barnaamij lagu sugayay in lagana diyaariyay ururka Al-Shabaab oo u qaabilsan dilalka Muqdisho iyo weliba xubno ka tirsan oo la qabtay. inkastoo ay jirto qabyo labaad xalqada koowaad oo ninka ugu badan ka soo muuqday uu yahay mid lagu magacaabo Maxamed Xaaji Axmed horjoogaha shabakadda waxaana lagu soo bandhigay xogo kala duwan oo ku aadan. macluumaadka ayaa waxay ku saabsan yihiin howlgallada khaarijinta ee shabakadda Axmed ay ka furiyeen magaalooyin ka mid ah Muqdisho iyo weliba Marko iyadoo magacyada afgarashadu ay ka mid yihiin Daadir, Ilkacsi, Cadaawe iyo weliba Xudayfa. falka uu ku lug lahaa ayaa lagu beegsaday mas-uuliyiin saraakiil ciidan iyo rayid oo ay jiraan shakhsiyaad caan ah. shakhsiyaadka caanka ah ee dilkooda uu wax ka ogaa waxaa ka mid ahaa nin yar lagu magacaabo Casad Xaaji oo ah youtuber Soomaaliyeed ku nool gudaha magaaladaasi
Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. 26 Agost 2012 dabley ayaa banaanka meherad ku taala marka xarunta gobolka Shabeellada Hoose waxay si daran ugu dhaawaceen Asad Xaajiyo oo ku dhacday 6 xabadood. xabadaha oo looga beegsaday qaybta sare ayaa ka dhex baxay marka laga reebo mid ka mid ah haleeshay dhabarka oo dharsi inuu lugaha ka naafoobo kuna socdo badda gaariga curyaanka. Ilkaasi oo garanaya gacan ku dhiglaha falkaasi sameeyay ayaa sidoo kale saaxiibo dhow waxay ahaayeen Asad Xaajiyo. Asad wuxuu ahaa nin aan aqoono shakhsiyan, nin fiican ayuuna ahaa, dowladda uma shaqaynaynin waxbana ma uusan ahayn, ayuu yiri Ilkaasi oo barnaamijka Kungaar ee warbaahinta dowladda ka waramayay. Sida uu sheegay Ilkaasi, isku dayga dil ee Asad oo ugu dambeyn nin lagu magacaabo Boodboodi ayaa yimid markii la arkay isagoo telefoon ku hadlayo oo sheegaya shabaabka waa carareen. Ilkaasi oo sawirka shahaadadiisa dugsiga sare uu ka qaaday Asad ayaa joogay meel ku dhow goobta uu shirqoolku ka dhacay. Boodboodi oo dhintay isagoo aan waxba hubsan ayuu xabadda ku furay. Markii ay xabaduhu dhaceen waan soo cararay, ninkii oo jiifay ninkan oo bastoolada xareysanayo ayaan aragnay. Markii aan weydiinay wuxuu yiri xoog ayuu gudbinayay. Asad markaasi wuu noolaa, si aan la ii fahmin ayaan u dhexgelin, ayuu yiri ku daray Ilkaasi. Inkastoo Al-Shabaab aysan xilligaa sheegin isku daygii la doonayay in lagu dilo Asad oo ka shaqeynayay goobta sawirada lagu qaado, ayaanan weli aqoon sababta uu bartilmaameedkaasi u noqday. 2 qof ayaa ii timid, mid banaanka ayuu istaagay, kan kalena 6 xabadood ayuu igu dhuftay ilaa aan ka dhaco, ayuu yiri Asad. Markii maxaad ii xabadaysan, xigaal baad ii ahayd, ayuu ku daray. Axmed oo ah 27 jir ku dhashay Buulamareer gobolka Shabeellada Hoose oo caruurnimadiisii la jirinaya ayaa diinta ku bartay marka gacan saarna la leh ururkaasi. 2008 ayuu ka qalin jebiyay sida la sheegay dugsiga hoose iyo dhexe ee magaaladaasi. Dugsiga sare oo 2020 inuu ka bilaabo gudaha magaalada marka ayuu dhameeyay sanadkii 2011. Jaamacad ku taal Muqdisho ayuu 2012 ilaa 2016 ka bartay Public Administration Muqdisho University ayuuna markii ugu dambeysay ka diyaarinayay masterka. Sanad kadib wuxuu shahaadada dibloomada ka qaatay Machadka Luqadda Ingiriiska lagu barto oo ku yaala caasimadda, halkaas oo kolkii dambe uu ka noqday macallin. Machadka oo 2 sano uu ka howlgeliyay gaar ahaan maalmihii Khamiistii Jimcaha ayuu ka tagay bishii March sanadkii 2019 waana 2 bilood ka hor inta uusan u gacan gelin laamaha ammaanka ee dowladda, taasi oo sababtay in la ogaado waxyaabaha uu sameeyay iyo weliba suurtagalnimada ka dambeysa in uu noqdo macallin una shaqeeya ururkaasi Al-Shabaab. ugu dambeyn qaar ka mid ah beelaha deegaanada maamulka Galmudug ayaa ergooyin u diray magaalada Gaalkacyo ee uu madaxweyne Xaaf ku sugan yahay, kuna dhawaaqayna dhisaya maamul ku aadan deegaanada Galmudug. Saacadii la soo dhaafay ayaa waxa magaalada Gaalkacyo waxaa gaaray qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada Galmudug oo ka soo horjeestay xildhibaanadii shalay looga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb. Qaar ka mid ah guddiga doorashooyinka ee Galmudug ee dhanka Xaaf ayaana sheegay inay bilaabi doonaan shaqooyinka loo igmaday, waxa ayna sheegeen inaysan aqoonsanayn xildhibaanada looga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb. Madaxweynaha Galmudug ayaana sheegay in magaalada Gaalkacyo ay taalo gogol lagu dhisayo Galmudug loo dhan yahay, isla markaasna dowladda dhexe ee Soomaaliya ay hareer martay dhismaha deegaanadaasi Galmudug. Khilaafka ka taagan dhismaha Galmudug ayaana xoogeystay maalmihii ugu dambeeyay kadib markii la bedelay qaar ka mid ah odayaashii saxiixayaasha Galmudug, taasi oo keentay in qaar ka mid ah odayaasha ay ku dhawaaqaan in gebi ahaanba isaga bixin arrintaas, isla markaasna ay u goostaan dhanka Xaaf. Arrintan ayaana waxa ay sababtay sidoo kale in muran xoogan uu ka dhasho dhismaha maamulka Galmudug oo ugu dambeyntii meelihii ugu dambeysay maray. Walow guddiga shalay ku dhawaaqeen liiska xildhibaanada cusub ee Galmudug, haddana weli waxaa taagan isqabqabsi iyo weliba in odayaasha dhaqanka iyo weliba beelaha qaar ee deegaanadaasi Galmudug aysan aqoonsaneen ama ay kasoo horjeesteen liiska xildhibaanada cusub ee la soo saaray. Ra-iisul Wasaare Khayre ayaana ku sugan magaaladaasi isagoona sidoo kale wado dadaaladiisii ugu dambeeyay oo ku aadan qaabka loo soo dhammaystiri lahaa 6 xildhibaan oo ka dhiban xildhibaanada cusub ee Galmudug. waxaana lagu wadaa sidoo kale in xildhibaanadan cusub ay doortaan madaxweynaha cusub ee Galmudug. walow khilaafka hadda soo shacbaxay iyo weliba gogosha taala Gaalkacyo ee culays xoogan ku noqon doonto qof kasta oo ka soo baxa madaxweyne ka noqda magaalada Dhuusamareeb doorashada taala, haddana waxay arintani ay noqon doontaa culays xoogan oo uu noqoto in uusan noqonin maamul adag madaxweynaha cusub ee laga soo dooran doono magaaladaasi Dhuusamareeb. intaas ayaanu kusoo gabagabeynaa warkeena subaxnimo tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.